السلام عليكم soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaynu ka hadlaynaa film action ikraam ka kooban oo soo baxay sanadii 2022 kaas oo ay tuugo aan caadi ahayn ay ambulance u isticmaalayaan inay bank ku soo dhacaan waxaana filmkan lagu magacaabaa ambulance haddaba daawasho wacan filmka wuxuu ku bilaabmaya wiil oo ah askari howlgab ah oo shaqo-la'aan noqday kadib markii uu ciidamada ka fadhiistay waqtigan xaaskiisu aad ayay u bukootay waxayna u baahneed qaliin degdeg ah laakiin maadaama wiil uu faqiir ah wuxuu ku qasbanaaday inuu isbitaalka waco si ay u caawiyaan isbitaalku markii ay maqleen in ninkan uusan lacag haysan ay isla markiiba taleefanka ku damiyeen isagoo aan doorasho ka laysan wiil ayaa u baxay inuu caawimaad weydiisto saaxiibkiisa qaaliga ee Dani kaas oo waardi u ahaa nin taajir ah Dani shaqadiisa maalinlaha waxay ahayd inuu baabuurtan ilaaliyo wiili oo iska maskiin ah ayaa markii uu arkay gawaaridan quruxda badan uu aad u riyaaqay Dani wuxuu saaxiibkiisu sheegay in wadankii ay u dhimanayeen uu dayacay kadib markii ay howlgab noqdeen dabadeed markii ay Dani asxaabtiisu yimaadeen waxay dhammaantood diyaarsadeen hubkooda waxaana soo baxday inay qorsheynayeen inay banki dhacaan Dani waxa uu wiil ku qancinaya inuu burcadiis ku soo biiro laakiin wiil waa uu ka lablabeynayay Dani wuxuu saaxiibkiisu sheegay inuu kaliya ka rabo inuu u kaxeeyo baabuurka halka burcadu inteeda kulan ay hawsha qabanayaan isagoo aan doorasho kala haysan ayaa wiil u aqbalay oo mishinkooda ayay bilaabeen ugu horreyn Dani asxaabtiisa ayaa gudaha dhismaha galay iyagoo iska dhigaya inay ka mid yihiin shaqaalihii bankiga laba nin oo booliis ayaa yimid oo mid ka mid ah labada nin ayaa go'aansaday inuu bannaanka taagnaado halka kii kalena uu gudaha soo galay oo wuxuu weydiinayay sababta bankiga loo furi waayay maanta hadda raggii Dani waxay ku dhuumanayeen gudaha dhismaha waxaa sidoo kale jiray niman kale oo miiskoosis ku jira kuwaas oo shaqaalihii ugu hanjabay inay toogan doonaan haddii ay aamusi waayaan kabtan Murray waxaan oo dhan ma uusan ogeyn oo wuxuu bilaabay inuu haweeneydii shukaansado Murray oo ogaya wajiga haweeneydan ayaa dareemay inay wax qaldan yihiin balse Dani asla markii bistooladiisa la soo baxay oo Murray u hanjabay wuxuu ku wargeliyay inuusan naftiisa halis gelin wuxuu soo qatay malaayiin dollar dahab iyo dheeman bankiga yaalay Dani darawaladiisa ayuu wacay si ay u yimaadaan balse nasiib daro gaarigoodii xamuulka ayaa bankiga agtiisa ku halaabay askarigii booliiska ee Murray la socday oo tani arkay ayaa caawiyay ninkan laakiin dabadeed wuxuu arkay Dani oo saaxiibtiisa ku qalinaya kadib markii ay bankiga ku soo daaheen askarigii wuxuu damcay inuu rasaas ku furo kooxdan balse darwalkii ayaa kor istaagay oo gaariga jiirsiin rabay darwalkii wuxuu isku dayay inuu dilo ninkii u gargaaray intaas kadib waxaa halkaas ka dhacday israsaasin dhex martay labada dhinac waxaana goobta soo gaaray ciidamadii booliiska oo gaaf wareegaya halkii ay wax ka dhaceen isagoo aan awoodin inuu albaabka hore ka baxo Dani ayaa gudaha bankiga ku labtay muuqaalka dibadda wuxuu ahaa mid aad u qasan waqti xadirkan haweeneydan iyo saaxiibkeeda oo ambulance ka shaqeeya oo arrintan maqlay ayaa u soo orday dhankii bankiga si ay dadku u badbaadiyaan dhowr ka mid ah gawaarida booliiska iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa goobta ku soo yacay intii ay baakinka hoos u ordayeen Dani ayaa afdubtay askarigii booliiska ee Murray la dhahayay booliiska ayaa xirtay albaabkii bankiga laga soo galaya oo waxay madax ka togteen darawalkii gaariga xamuulka si lama filaan ah Murray ayaa Dani weeraray balse nasiib wanaag wiil ayaa badbaadiyey oo Murray xabad ku dhuftay wiil oo arrintan ku quminaya ayaa Dani oo saaxiibkiisa soo waday waxaa burcadii soo gaartay khasaare aad u fara badan oo waxay ku dhawaadeen in la cirib tiro warkan ku saabsan dhacii loo geystay bankiga ayaa meel walba ku faafay booliiska ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa meel walba waddooyinka ka taagnaa Dani oo eegay bannaanka ayaa ogaaday inay hareeraysan yihiin oo wuxuu qorsheynaya inay baxsadaan dhanka kale wiil ayaa isweydiinaya inay ciidamo badan bannaanka joogaan dusha sare ee saqafka waxaa soo koray 7 askari oo SWAT ka tirsanaa sidoo kale waxaa jirtay helikabtar hawada gaaf wareegaysay kooxdii SWAT ee albaabada soo jibiyey si ay gudaha u soo galaan kadib Mark ayaa si degdeg ah u tagay Murray oo dhaawacnaa oo namiir daboolmay ciidamadu waxay weerar ku qaadeen meeshii uu Dani ku sugnaa halka markii ay marayso Dani iyo wiil waxaa lagu qasbay inay dib ugu laabtaan baakinkii baabuurta la dhigayay kadib haweeney qurux badneed oo shaqaalaha caafimaad ka tirsaneed oo Cam lagu magacaabo ayaa timid si ay Murray u badbaadiso balse markii ay gaariga saareen si ay isbitaalka u geeyaan ayaa Dani uu ambalaastii istaajiyey Dani wuxuu isku dayay inuu ambalaastan ku baxsado isagoo qaybta dambe ee baakinka maraya balse booliiskii ayaa joojiyey Dani iyo wiil waxay markaan moodeen inay dhiman doonaan balse markii ay booliisku fureen albaabkii ambalaasta ayaa waxay kaliya arkeen Cam oo ku qaylinaysa inay fasaxaan maadaama uu bukaanku xaalad halis ah ku jiro Cam waxay badbaadisay burcadan oo Dani ayaa ka raalgeliyay qorigii uu ku qabtay kadibna uu dhoola cadeeyay ambalaastu kuma aysan dhiiran inay marto haweenka oo waxay ka dhex baxeen luqluqyada si ay uga badbaadaan roondadii helikobtarka Cam oo mashquulkan ka faa'iidaysanaysa ayaa wiil ku buufsay dugdimiyaha waana ay carartay dabadeed Dani ayaa si degdeg ah qor ugu qabtay oona ugu hanjabay inuu dilayo waqtigaas Murray wadna xanuun ayaa ku soo booday sidaas darteed Cam ayaa soo noqotay si ay bukaankan u badbaadiso oona afartooduba waa ay baxeen waxay saraakiishu ogaadeen in darawalkii ambalaasta la dilay oona gaarigiisa la dhacay helikabtarkii ayaa dabagal ku haysay ambalaasta kadibna booliisku waxay xaqiiqsadeen in ambalaastan ay xawaare sarayso sidaas darteed wuxuu ku qasbanaadeen inay helikabtaro badan soo diraan isla markaas sargaal kale oo la soo wacay ayaa ambalaasta dhinaciisa ka soo bursaday iyagoo ka soo noqonaya waddadan ay haddana mar kale la soo ceersaday oo isbursashadan waxaa ka dhalatay khasaare ba'an xilligaas Cam waxay isku dayaysay inay kordhiso cadaadiskii garaaca wadnaha ee Murray iyadoo Dani caawimaad ka helaysaa intii uu Dani shir ku laabanayay gaarigoodii oo cirif ka dhici rabay ayaa wiil uu break qabtay taasna waxay keentay in ambulance ay istaagto oona gaarigii booliiska ee ereynaya uu meesha ka dhaco waxay ka faa'iidaysteen fursadan oo isla markiiba baabuurka ay kala wareejiyeen oo waa ay carareen
داني aysan wada kale u furnayn ayaa la xiriiray William oo ahaa madaxii gangistarada. Dani maadaama uu hadda haysto $16 milyan ayaa wuxuu hogaamiyahan weydiistay inuu caawiyo, isagoo u ballan qaaday inay lacagta kala qaybsan doonaan. William wuxuu Dani weydiiyey qaabka uu caawin karo. Dani ayaa William kaliya u sheegay inuu raggiisa soo wado oo ayna booliiska ka mashquuliyaan. Hogaamiyihii markuu maqlay lacagtan oo sida fudud ku heli karo, ayuu isla markiiba raggiisa ku amray inay isdiyaariyaan. Dani wuxuu sidoo kale wacay saaxiibkiisa oo garaash ka shaqaynayay, wuxuuna ka codsaday inuu u soo kaxeeyo gaariga ugu dheereeya si uu u badbaado. Markaas diyaaradii helikobtarka ayaa ku soo dhawaatay ambalaasta oo la qaban gaaray. ciil dartiis Dani wuxuu damcay inuu dilo askarigii booliiska, balse Cam ayaa joojisay. Iyada xitaa inta uu xanaaqay ee dil ugu hanjabay. Ambalaastii ayaa soo dhex jeexday bartamaha isgoyskan oo dhowr baabuur oo ay booliisku lahaayeenna ay burbureen. Dani oo iswaalaya ayaa albaabkii gaariga furay, wuxuu sargaalkii ceersanayay ugu hanjabay inuu Cam dilayo haddii uu ka hari waayo. Markaas sargaalkan ayaa ku khasbanaaday inuu tanaasul ku meel gaar ah sameeyo oo uuna dib u gurto. Kooxdan waa ay baxsadeen, oo waqtigaa waxaa booliisku lagu amray inay waddooyinka waaweyn xiraan. kooxdii dambaaris waxay ogaatay in Dani uu dhaca bankiyada ku guda jiray tan iyo markii uu 17 sano jirka ahaa. Wow, ninkan isagoo 17 jir ah ayuu lacagaystay, halka aniguna aan halkan fadhiyo oo aan muuqaalo caajis leh samaynayo. Waxaa soo baxday in aabihiisa uu sniper ahaa, isagoo banki dhacaya ayuu dilay 6 ka mid ah shaqaalihii bankiga. 10kii sano ee la soo dhaafay Dani wuxuu dhacay 7 banki, oo bankiganna waa kii 8aad. Waqti Murray xaaladiisu halis ay isku bedeshay oo si daran ay u dhiig baxay. Cam waxay markaas wacday dhakhtarkii qaliimada oo fasax ku guda jiray, waxayna weydiisay sida dhaawacyada loo daaweeyo. Intii dhakhtarku la hadlaysay, Dani ayaa Cam qori ku hayay si uu dhakhtarka wax u sheego. iyadoo video call la adeegsanayo, dhakhtarka ayaa Cam oo saaran ambalaastan xawaaraha sare ku socota u tilmaamayay sida qaliinka loo sameeyo. Booliisku waxay sheekadan kala socdeen gacanka, maadaama wiil uu askari hore ahaa ayaa Cam uu ka caawinayay qaliinkan, halka Dani loo xilsaaray inuu baabuurka wado. Si tartiib ah ayay qaliinka u wadaysay uga fogaato wax kasta oo halis keeni kara. kadibna Cam waxay bilowday inay xabadii jirkiisa ka soo saarto. inta lagu jiro qaliinkan, haddii uu beereeraha Murray uu si lama filaan ah u dilaaco, wuxuu isagu ku dhiman karaa 60 ilbiriqsiyo gudaheed. Cam waxay ku qalinaysay inay qaliinkan ku guulaysan karaan. isla markiiba beereerihii ayaa dilaacay oo kombiyuutarkiina dablaan ayuu la damay. waqti xun ayay wax walba isku soo aadeen. qof kasta wuxuu mooday in Murray uu dhintay. booliisku ayaa xanaaqay oo waxay go'aansadeen inay Will iyo Dani dilaan. waxay waceen Cam oo waxay ka codsadeen inay ku dhumato sariirta hoosteeda, laakiin waxay ku wargelisay in Murray ay badbaadisay. balse ciidankan waxaas ma aysan daleen oo xabado ayay soo rideen. kadib booliisku waxay askartoodii dagaalka ku jirtay ku amray inay si ku meel gaar ah dib ugu gurtaan, oona 2 baabuur oo rayid u ekaa ayaa ambalaastii la daba dhigay. Dani waxaa booliisku canaantay inay xabad ku soo ridaan iyagoo badbaadiyey Murray. Dani oo si tartiib ah dulqaadka ugu lumayay ayaa ka carooday Cam oo ku jajastay. taasna waxay keentay in Dani uu xabad ku rido ayada. kadib Will ayaa bareeg qabtay oo Danina xabadii waa ula gafay. labada nin oo beri ahaan jiray asxaabta ugu fiican ayaa hadda si baan u dagaalamay. iyadoo labadooda dagaalamaya ayaa Cam ay si degdeg ah ula xiriirtay booliiska. waqtigan booliisku waxay isku dayeen inay Will ku qanayaan inuu xaaskiisa ka fikiro oo uu soo dhiibo. haddii uu diideen uu mutaysan karo xarig 30 sannadood ah. dabadeed Will wuxuu si degdeg ah u wacay xaaskiisa, isagoo iska dhigaya inuu shaqraadis ku maqan yahay. marwadan waxay seegeeda ku wargelisay in maanta la dhacay bankiga magaaladooda oo uuna taxadiro. Will wuxuu shaashada ka eegay wiilkiisa, kadibna wuxuu daray inuu wax qaldan ku dhex jiro. Cam oo ag fadhisay ayaa ka waraystay xaaladii xaaskiisa. wuxuu sheegay in qalinkeedu uu qaali yahay oo uuna haysan qarashka lagu daweynayo. waqtiga gangistaradii William ayaa Dani buundada hoosteeda ku sugayay. Dani wuxuu si degdeg ah uga soo degay gaariga si uu helikobtarka u maaweeliyo. kadib markii ay diyaaradda damacday inay degto, ayaa Dani oo isla markiiba gaariga ku laabtay oo rasaas ku furay diyaaradda. helikobtaradii jawi hoose ayay ku socdeen, balse ambalaastii ayaa iskala wareejisay oo ka baxsatay. waxaa mar kale la isku ceersaday highwayga. ugu dambeyntiina waxay kooxdan awood u yeesheen inay booliiska ka reebaan oo ayna gaaraan halkii uu William u diyaariyey. halkan waxaa ku diyaarsanaa ambalaasyo kale oo isku eg. kadibna kooxdii William ayaa waddooyinka ku soo daayay 3 ambalaas si ay booliiska u mashquuliyaan. gawaaridan mid wuxuu u aaday dhanka bari, halkii kalena u baxay dhinaca galbeed. tani waa khiyaano farsamaysan oo darawaladan waxay ahayn kuwo si fiican u tababaran. si lama filaan ah wiilkii William ayaa ka booday gaarigii uu waday. kadibna ambalaastii waxay si toos ah u aaday dhankii booliiska. booliisku waxay ogaadeen in darawalku uu cararay, balse iyagoo kama warqabaan in baabuur kale oo qori korkabna uu ku soo socdo. qorigan otomaatiga ah oo daqiiqadiiba 6,000 oo xabadood ridi kara ayaa bilaabay inuu askartii booliiska laayo. sargaalkii kooxdan ayaa sidoo kale si arxandar leh loo dilay, oo muuqaalkii goobtan wuxuu isku bedelay xabaalo. William oo xasuuqan fiirsanaya ayaa aad u qanacsanaa. waqtigaas taliye Mark ayaa bursaday wiilkii William. markii uu gacanta ku dhigay wiilkii William ayaa si kama ah xabad ugu dhacday oo waa u dhintay. William ayaa aad u carooday. intaas kadib ambalaastii Dani ay soo gaartay goobtii qarsoodiga ahayd ee William joogay. William murugo ayaa ka muuqatay, halka Danina uu faraxsanaa isagoo u malaynaya in wax walba ay isku dhamaadeen. Dani wuxuu William oo qalbi jabsanaa uga tacsiyay geeridii wiilkiisa, wuxuuna siiyey $8 milyan. waqtiga William wuxuu ragiis ka maqlay in gudaha ambalaasta uu ku jiro askari booliis ah. gangistarkan ayaa labadan nin ka dalbaday inay kalkaalisadii askariga ku soo wareejiyaan, laakiin Dani ayaa ka biyo diiday.
isagoo tani arkaya William ayaa xanaaqay oo wuxuu Danny ku qasbay inuu saaxiibkiisa Will dilo. laakiin taa beddelkeeda Danny ayaa qorigiisa u adeegsaday inuu ku dilo burcadii William, wuxuuna wejiga ka toogtay William isagoo u sheegaya in Will uu yahay walaalkiisa oona qofkii isku dayay inuu taabto uu dilayo. Danny iyo Will ayaa dabaq hoose u soo degay iyagoona ku jiray dagaal dhimasho leh oo waxay la sii dagaalamayeen intii ka soo hartay burcadii William. nasiib daro intii uu ambulance ku laabanayay Will waa la toogtay oo Camna waxay khastay in Will ay si qalad ah xabad ugu dhufatay. Danny ayaa xaggood u soo yaacay isagoo burcadii la sii dagaalamaya. ambalaastii ayuu mar kale kaxeeyey oo waxaad moodaa inuu jinni darawal ka yahay. gawaaridii booliska iyo helikabtar ayaa haddana mar kale soo ceersaday, markaan qofna diyaar uma uusan ahayn inuu quusto. waxa iyagu ceersanayay laba kooxood oo kale ah burcad iyo booliis. dhan kale Will oo si xun u dhaawacmay ayaa wadnihiisa uu aad u garaacmayay. Cam waxay ku qasbanaatay inay u fidiso gargaarka degdega ah. ambalaastii ayaa mar kale xawaar dheeraysay, laakiin markan ma aysan doonayn inay baxsadaan, laakiin waxay aadeen dhankii isbitaalka. waxaa soo baxday in Danny uu fiirsan waayo walaalkiisa oo dhigbaxaya, saas darteed wuxuu baabuurka joojiyey ridda isbitaalka. 12 askari oo isugu jiray ciidamada booliska iyo kuwa sida gaarka u tababaran ayaa bannaanka taagnaa. shiishayaano kale oo ka tirsan ciidamada SWAT ayaa diyaar u ahaa inay rasaastooda soo furaan marka ay ambalaastu khalad samayso. Danny wuxuu gaariga ku dhex arkay baskoolad oo wuxuu u malaynayay in Murray uu Will xabadda ku dhuftay. Danny ayaa madax qori ugu qabtay askarigan oo Cam ayaa qiratay inay iyadu ahayd qofkii Will xabadda ku dhuftay. Danny oo aad ugu carooday haweeneydan ayaa dhunta ka qabtay, wuxuuna wacd ku maray inuu booliisku hor dilayo. Danny ayaa furay albaabkii baabuurka oo shiishayaanaduna liif ayay ku hayeen. wuxuu isagoo qaylinaya ka soo boday ambalaastii oo xabad ayaa xabad ka haleeshay. qofka Danny xabad ku dhuftay ma uusan ahayn shiishahan, laakiin dhab ahaantii waxa uu ahaa Will. waxaa soo baxday in Will uu Cam siiyey lacagtii ay soo xadeen kahor inta uusan u sheegin inuu rabay inuu lacagtan siiyo xaaskiisa. Will waxa uu doortay inuu saaxiibkiisa qaaliga khiyaano oo uu dabin u dhigo. intaa kadib Will waxaa loo qaaday isbitaalka oo khatartiina waa uu ka badbaaday. inkastoo ay suurtagal tahay in lagu xukumo 30 sannadood oo xarig ah, ayaa haddana waxaa macquul ah in laga khafiifiyo oo dhowr sano laga dhigo xukunkiisa, maadaama uu booliiska caawiyey inay soo afjaraan raggan burcadda ahaa. si kastay ahaataba anagu haatan Danny ma caawin karno, inkastoo isagu isku dayay inuu bangi dhaco. intaas ayuu filmkeena maanta ku egyahay. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. haddii aad xiisanayso muuqaalkan oo kale ah, subscribe saar oo noo reeb like si aad u caawiso kanaalka. intaan muuqaalkan lamid ah aynu ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo.